كلا أنا وسيد أحسن جبل الدحيح وحاجة صدق زمرك كسر يسمعون ده بقول بصدق قيب كلامات وكم أنت تقارن مدميها قبل كجدر فارمش التعب بني هذا فريقا من قدرة مدحوينا أحمد محمد إسلام ولدنا بعد سوقاته وحبنا بعد تصور شقيسه وحبنا بعد سوق الجبسي شوف الله إني عاد سوقاته ما أنت بعد كل لسه تقبليه سوق قدامي إلى هيئة تيس براس بسوق أنا كنت ما هذا سيدا إسكال أبيا قالوا ما العلنا في رد الله يشاء madaxweyne siyaasadda ayaan ka hadlayaa qaybta ay ku leeyihiin haweenka madaxweyne waxaan ka codsanayaa madaxweynahana waan jecelnahay ayaa tahay waxaan ka codsanayaa boqolkiiba 30 siyaasadda haweenka kootadii ay lahaayeen baan ka codsanayaa madaxweyne arrimihii soo socday ee ahaa shanta bari aan ku soo jirnay isdhexgalka bulshada iyo tayeynta haweenka iyo go'aan qaadashada siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo sida muxuu ahaa haweenka Soomaaliyeed loo miday la fikrad ahaan iyo maskax ahaan wixii ka soo baxeen inaan dawladda ula tagno annaga oo markaa maskaxdeena iyo muruqeena midaysan yahay runtii gabdhaha Soomaaliyeed haddii aan dib ugu noqdo taariikh bay leeyihiin gabdhaha reer Jubbaland waliba taariikh ay leeyihiin waxay ahaayeen gabdhihii markii wadanka burburku u dhacay dibta ugu badan la ay ku dhacday isla markaas haddana ayagoo dibta ugu badan ku dhacday waxay ahaayeen gabdhihii soo sabata bixiyay ummadda Soomaaliyeed maanta ay joogto dawladana runtii bilowgeedii ay ka soo bilowday duurka ilaa ay hadda ay joogto gabdhuhun baa soo garab taagnaa oo dhaqaalahooda iyo xoolahooda iyo maalkooda ku soo bixiyo runtii qaar baa gaandariyaal ah oo xabada ridi jiray qaar bay xabada ku taalaa dagaalkana waana galnaa hadda anaga naftirkeen dad saalan ma nihin runtii marka haddii ay saas tahay hooyo ay ahayd ilmo dhalayso soo barbaarinayso diinta islaamka soo tarbiyeynayso ninkeedii iyo gurigeedina ku filan ehelkeedii iyo qaraabadii xididkii iyo muxuu ahaa qoladii qabtay iyo qoladii ka dhalatay isku xiraysay hadda reerkaas horta reer sahlan ma aha intaasoo dhan gabdhaha Soomaaliyeed ka soo qaateen nadaafadii iyo dawladda dhisideedana waan ogeen iyo ciidamadii dagaalamayay gabdhaha u garab taagnaayeen xoolahooda iyo maalkooda iyo aqligooda maskaxdooda iyagoo lacag dawladda ka doonanin ay ku bixinayeen marka haddii saas tahay markii dawlad la dhisana in haddana nala gacan bidixeeyo oo gacanta bidixda lagu qabto ma yeelayna mana ogolaanayno marka haddii dad maanta maalin aad iyo aad u farxad badan weeye waa maalin laga hadlayo kulanka haweenweynaha Soomaaliyeed ee wada tashiga ee reer Jubbaland ay muddada dhowrka maalmood ah halkan ka wada tashanayeen aayaha iyo mustaqbalka iyo xuquuqda ay leeyihiin haweenka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ka kala yimid saddexda gobol waxaan filayaa wada tashigaas inuu yahay wada tashi aad iyo aad u weynaa kana soo baxay miro dhal waxaan rabaa inaan hambalyo iyo mahad u jeediyo wasaaradda haweenka dawladda Jubbaland wasiiradda iyo inta wasaaradda ka shaqeynaysa ee barnaamijka ballaaran isku soo duuday ama baan u jeedinayaa hortiinaan amaan uga jeedinayaa saas la eg waxaan amaan u jeedinayaa hay'adda TIS Plaza oo ayadana aad iyo aad uga qaadatay oo mar walba garab taagan inay xukuumadda Jubbaland ama xukuumadaha kala gedsan ee Jubbaland maxaa wasaaradaha kala gedsan ee Jubbaland wasaarad walba oo toosinayso shaqadeeda inay garab istaagto ayadana aad baan hambalyo u jeedinayaa iyo bogaadin gaar ahaan liibaan ninka la yiraahdo aad baan u amaanayaa maxaa wacay waa markii labaad oo halkaan aan ugu imaano ama seminar lagu qabto dad ka socda Jubbaland degmooyinka kala gedsan iyo saddexda gobolba waxaan filayaa seminarkaas ka horreeyay waxa isugu yimid gudoomiyaasha saddexda gobol ama barasaabiyada saa u taqaanaan gudoomiyaasha degmooyinka inta xorta ah ee Jubbaland iyo waliba inta xorta ahayn waxaa qabatay wasaaradda arrimaha gudaha waxaana garab istaagay hay'adda TIS Plaza